agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirigeeye oo maalmihii ugu dambeeyay ku hawlanaa dirdirgelinta iyo kor u qaadista wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa qaar ka mid ah shacab weynaha ku dhaqan magaalo ganacsiyeedka degmadaasi Togwajale oo maanta la hadlayay telefishinka caalamiga Sab News ayaa waxa ay ka maqraati kiceen dadaalka iyo juhdiga mar kastaba ugu jiro sida uu horumarin lahaa wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xirigeeye mas'uuliyiintan ayaa iyagu waxay hoosta ka xariiqeen inuu agaasimi ugu horeeyay ee mudane Muuse Biixi Cabdi ay xilka hayso ka dhax muuqdo golaha wasiirada isla markaasina horumar ballaaran ku talaabsaday waa sida ay sheegeen waa kuwan iyagoo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya caafimaadku intuu Muuse Biixi joogay wasaaradda joogay wax weyn uu ka qabtay oo lagu tiirsaday oo lagu farxay oo dadweynihii raalli ka noqday oo waxa weeyaan maanta wajaale jooga oo agaasima wax la mid ah oo hore noo soo maray dibna inuu noo soo maray mooyaan marka uu agaasimahaasi waxa weeyaan agaasima firfircoon waa agaasima hawshiisa soo baxay waa agaasima dadweynaha u shaqeeyay waa agaasima caafimaadka qayb weyn oo laga qabtay intuu Muuse Biixi xilka u magacaabay Togwajale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka waxaan u haynaa abaal weyn isagoo dhaqaajiyay dhammaan gobolada Somaliland caafimaadkoodina horumar 90% gaarsiiyay waxaan leenahay agaasima halka ka soo aad baan taageero buuxa ku haynaa degmada Togwajale aad iyo aad ugu mahadnaqaysaa taasoo wax qabadkaagii aan la dhacnay meelo badan ka eegnay annagoo lama yiraahdo marka gobolada Somaliland ragnay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wax qabadka dhan agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Mr. Xirigeeye oo wax qabad baahsan oo aad wax qabad muuqdo oo fiican qabtay intii uu joogay wasaaradda caafimaadka Mr. Xirigeeye intii uu wasaaradda ku sugan yahay oo maamulka Majaraaw hayo wuxuu qabtay uu tayay shaqaalihii wasaaradda oo uu tababaro iyo training oo u furay shaqaalaha wasaaradda waxaan halkan ka leenahay Mr. Xirigeeye waad ku mahadsan tahay sii wada dadaalka dalkaaga iyo dadkaaga aad u shaqeynaysaa waxaana lagaaga fadhiyaa inta aad maanta hayso ee qabatay iyo in kale oo ka sii badan inaad u qabato jamhuuriyadda Somaliland sababtoo ah waxa tahay mas'uulka loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka waxaad ka soo qaaday meel fiican waxaana hadda marinaysaa meel aad u wanaagsan waxaana kaaga sii filnaa Ilaahay xagga Allah waxaan kaaga filaynaa in aad wax qabad kaad muujisay aad si laba jibaarto oo dadaalka aad si laba jibaarto aad baan u mahad Qadar Cabdi Cabdullaahi telefishinka caalamiga Sab News degmada Togwajale